wadnaha ciida madaguud oo wada riska shaday taliyihii asluubta Soomaaliya ugu horeeyay sarreeyaas Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo gurigan aan joogno dhisay oo dalkan inta ay asluubu sheeganaysa ninkii qabtay ah haday beer tahay haday guri tahay haday xabsi tahay iyo haday xarumo agoon tahayba wasiirka xubiyi wada jira wasihul wadin badan oo kala duwan wax u qaybsama ra'iisul wasaare anagoo qaadanayna tilmaamahaada iyo tusaalahaada ciidamada usluubta waxa ku socda dib u habayn iyo dib u dhis kaas oo aad u ballaaran ha ahaato xagga aqoonta ha ahaato xagga ilaalinta maxaabiista ha ahaato xagga dhismiyaasha xabsiyaal waaweyn dalkeen in laga dhiso ha ahaato in lagu tababaro anshax wanaag daahfurnaan iyo shaqo wanaag run ahaantii tilmaamahaas aad bixisay wax weyna ka hirgalay sidaad had u jeedaba wadnaha ciida madaguud oo wada riska shaday sanadihii aan soo dhaafnay 3 sano waxay dawladdu ku mashquulsanayd in dib u habeyn lagu sameeyo arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga arrimaha ciidamada iyo dawlad wanaag si shaqadiina ay u sahlanaato marka iyadoo la sii wadi doono dib u habeynta ciidamada lagu sameeyo anigoo u mahad celinaya taliyayaashii qaybta libaax ka qaatay oo halkan fadhiya General Bashir General Daahir ay ugu horeeyaan lana sii wadi doono dib u habeyntaas oo dhalisayna inay sahlanaato in askari walba uu xuquuqdiisa helo ama qof walba oo shaqaalaha dawladda ay 3 sano la soo dhaafay xuquuqdooda helaan waxa haddana muhiim ah maadaama dalku uu marayo meel ummadda rajadoodu ay ka soo kordhaysatii hore in cadaaladana dib u habeyn lagu sameeyo halkana ay fadhiyaan ciidamada qalabka sida maxkamadoodii iyo wasiirka cadaaladda ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa maanta xusay sanad guuradoodii 50aad ee ku beegnay wadnaha ciida madaguud oo wada riska shaday xubiyi wada jira wasihul wadin badan oo kala duwan wax u qaybsama wadnaha ciida madaguud oo wada riska shaday xubiyi wada jira wasihul wadin badan oo kala duwan wax u qaybsama ciidamada wadaniga anshaxalo wakiishiyo ciidamada wadaniga anshaxalo wakiishiyo waxaana hayasluubtay ciidamada wadaniga anshaxalo wakiishiyo ciidamada wadaniga anshaxalo wakiishiyo waxaana hayasluubtay itiisama hawiiqde weedaysa nabada sharciyada waxyeesha ليسو والوانا إدي سماحة ويقضي
weedaysa nabada sharciyada waxyeesha laysoo walwaala qabta warankoodii xabsiyada ku weesha qabta warankoodii xabsiyadan ku weesha cidiisa mahawiiqdii weedaysa nabada sharciyada waxyeesha laysoo walwaala cidiisa mahawiiqdii weedaysa nabada sharciyada waxyeesha laysoo walwaala qabta warankoodii xabsiyadan ku weesha qabta warankoodii xabsiyadan ku weesha waxtara xanaasha la waxtara xanaasha sida hooyo wiilkeed xumaha ugu wiciso waanada u siisa ana waxuu ku sheega ana waxuu ku sheega waxtara xanaasha la waxtara xanaasha sida hooyo wiilkeed xumaha ugu wiciso waanada u siisa ana waxuu ku sheega ana waxuu ku sheega inuu wacnaado wadada toosan uu maro waagii baryan hanuusha wanaagan u tilmaama wanaagan u tilmaama qofka inuu wacnaado wadada toosan uu maro waagii baryan hanuusha wanaagan u tilmaama alla wanaagan mama waxsiga wadiida alla waxbara ilaahda waxsiga wadiida waxbara ilaahda waxsiga wadiida waxbara alla waxsigan wadiida waxbara ilaahda ciidamada wadanigee anshaxalo wakiishiyo ciidamada wadanigee anshaxa oo wakiishiyo waxaan akhayasluutee 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 anshaxa oo wakiishiyo waxaan akhayasluutee waxaan akhayasluutee waxaan akhayasluutee waxaan akhayasluutee waxaan akhay raweeye wada jira wase holwadeen badan oo kala duwan wax waxuu qaybsamaa ciidamada wadanigee anshaxalo wakiishiyo ciidamada wadanigee anshaxa oo wakiishiyo waxaan akhayasluutee